kormeerkan oo ahaa mid maamulka degmada Bandarbeyle ee gobolka Karkaar ay ugu guurgalayeen xaaladda abaareed ee ka taagan deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada degmada Bandarbeyle ayaa waxa socdaalkooda ay ku soo kala bixiyeen ilaa 5 tuulo ay ka mid yihiin tuulooyinka Caris, Bixin, Dhuudo wafdiga iskugu jiray xildhibaano golaha deegaanka degmada Bandarbeyle iyo saraakiil ciidan oo uu horkacay taliyaha qaybta gobolka Karkaar Gaashaale Dhexe Axmed Yuusuf Muuse Jaqanaf ayaa waxa warbixino ku aadan xaaladda abaar ka dhageysteen qaar ka mid ah maamulada tuulooyinka ay booqdeen iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. baadiyahan joog jiray waxaan lahayn lix riyaa iyo 5 rooyda geel waa jiray awri waa jiray dameero waa jireen intiiba 15 neef ka haray dalka ee dunyada inta waxtar bay u baahan sababta oo koosanaysay abaar iyo nafaan cudurro tirooyin biyo la'aan taas haysata waxa awood oo wax qaban kara laakiin waxaan ka doonaynaa taageeraan ka doonaynaa walaalka waxaan ku qabnaa anagu hadda tacaddi weyn baan ku qabnaa waxaan deganahay aniga magaalada meel u jida 5 kiiloomitir waxaan ku dhaanshaa dunsha 20 biyaa baan markii geeyaa habeenkii waxaan cabi jiray deynaba meesha ku taal oo solar saaran yahay ilaa 15 sano hadda waa naga fadhiyaa waxaan ahay hadda dadka soo xirooday oo abaaruhu soo barakiciyeen gudoomiye ku-xigeenka degmada Bandarbeyle Bila Nuur Faarax ayaa tilmaamay in abaarta ka jirta gobolka Karkaar iyo guud ahaan Soomaaliya ay tahay mid saameyn dhanka nolosha ay ku yeelatay dadkii adduunyadaba waxaana uu u ballan qaaday dadka deegaanka in maamulka degmada Bandarbeyle ay si dhow la socon doonaan xaaladooda. dadkii waxa dhacday in noloshooda xoogaa hoos u dhacdo in ay dadka hay'adaha iyo waxa lagu qayliyo ay taakulayaan waxa keentay taas maadaama dadkii noloshooda dabiri waayeen ay siday badda uga shaqayn jireen oo uga heli jireen ay wax uga waayeen waxa keentay inay noloshooda hoos u dhacdo oo waxbarashada ku adkaato oo caafimaad ku adkaato biyo ku adkaado oo carruurta fiil ka bixi waayeen iskoolka waxa keentay badii baa laga xaalifiyay birigina abaar baa ka dhacday oo xoolihii way iska xumaadeen badina maraakiib shay oo xaalaf baa ka dhacay birigana ilaahay abaarta birigana ilaahay baa laga saari karaa Cabdirashiid Yuusuf Cali Jaamac Daacad oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Bandarbeyle ayaa ka sheekeeyay